حرام تقفك عنا عقوبوين بولا كل ميا الدنيا دا هي قبرك هي آخرة صدق دبا الدنيا دا عقوبات كل ميا وحي نقون كران وحان حرام تا أو كسبي إلهي إنه هلاتي أو بابيو وحي نقون كران جسد كيسية عافمات كيسا إلهي إنه سبحانه وتعالى كعقابة أو مصيبة أي كل عضو وحون نقون كرا عرورتي سية أهل كيسا وحرام تقودي حقه دا إلا قاقارو مصيبة إنه كوريكته نفتيسا إيا مال كيسا إيا أهل كيسا وننكلق بحن مروحي نقون كرا هانتدان إلهي إنه بابئيوه oo ay gubato oo ay badaha ku qarqoonto oo madaafiic balaaya ku dhacdo oo ay dunto dukun daakun ay noqoto waxay noqon kartaa hantidii inay joogto oo ay muuqato laakiin qofkii uu yahay qof ka baahan oo ay deeqi weydo ayadoo farihi ka badatay inuu gubanayo gubad uu dareemayo waxay noqon kartaa in lagu ciqaabo inuu jirrado iyo amraad iyo cudurro kala duwan oo maalin walba intaas oo lacag ah iyo hanti ah ودبدها أقصي جوشة يوم ميل البعافمات وكرادنا هيو حرام تأو عني سببته وحين نقول كرتا عرورتي سي ريركي سحقه ده إن لججله أو أيجي مال والبوحة ويانو إسبتال الله أوضه أو عذر خطري أي كل عان أما أيجي لفت جودي أي النقدان كوا عاصية أو ضجاج أو كوا عاصية أو كقوم ما يمحق الشيء يراهده أو مصيبة إلهي أقدره إلى الحرام بالعسية دي عقوبة أياكو إيمان يسقفك حرام تعنا الدنيا الدحديد وحاكم إذا عقوبين كالدنيا كل عياو كو إيمان هيا وحويان بريه سإلهي إنه بريه بين يمال وأن لك أقبلين نبي قنواش صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلهي وطيب وحان طيب هين ما أقبله مركز النبي يقول حقشك يا سفر كويمت أو سفر دير كتشره oo gacmaha kor u taagahaya oo basaasan oo boor laho dhibaato ka muuqato oo ilaahay tuugahayo oranaya ya rabb ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له هذو حاران عنهايو او حاران او خيرانهايو او حاران او عبهايو سيد دعاء الله اقبلا اسغي oo la yimid asbaabihi ducada lagu aqbalahayay oo musaafir ah oo gacmaha kor u taagahaya oo ilaahay tuugahaya oo rafaad iyo duruufi ka muuqato ayaa bariyihiisi la joojiyay xaraam cuna uu yahay daraadeed bana loo hakiyay ولذلك سفيان الثوري وحو يري من أنفق الحرام في الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول قفك شيء حرام كبحنا هي طاعة إلهي ومساجد يا مدارس بان كل سيا أرنا هي أو أن كحتشنا هي وحلم ذي هي قف مرن نظيفنا هي طاقة هي أو كادي كل طاقة هي لمديها والثوب لا يطهر إلا بالماء مرض وحان بياهين لقمان نظيفيه والذنب لا يكفره إلا الحلال ذنبك آجشنا وحا رافك حرام تينا كتكتد أو حلال أوريكت قفك مركا حرام هايسته أورنا يا واكحتشنا يا مساجد بان كدسيا وحويان مدارس قرآن بان كسمينيا كتب قرآن ومصاحف عن كوقفة هيا أورنا هيا قفك إسجاي وحويان قف مرم ميرا هيا دقة هيا وحو كل قيانا كادي أيتان من الظاهر سمس عقوبة أيول لي هي قفك حرام تعنا قبرك نبي عليه الصلاة والسلام سحابتي سوحا كم إذا الضون أخذ مينا هيي مالنتي خيبر أيانا للدلي markii khaybar la furtay ka bacdi baa la dilay gaalada gantaal ka yimid baana ku dhacay leeb gaalada ka yimid xageeda saxaabadu aad bay ugu farxeen waxay yiraahdeen hani'an lahu shahada waa guuleystay ninka isaga ah shahada ayuuna helay waa saxaabi waa khaadim nabiga u khidmeynayo ahaa gaala ayaa gacantooda ku dilay nabigu wuxuu kalaamay saamodeen ma aha والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر لم تصبها المقاصم لتشتعل عليه النار إلهي بان كدارته مالنتي خيبر حوله غنيمة أها قال ذا لغا فرتي انتي آن لقيبين قوئي وكقاتي
ayaa qabriga kula dhex gubanahaya qabrigu ku cadaaban yahay qabrigii baa wuxuu noqday god naareed maalintii Khaybar hantidii faraha badnayd ee Yahuuda laga furtay intii aan la qaybin ka hor ayaa go' la qurxoonaaday oo la fiicnaaday ayuu gooni u qaato meel dhigtay cuqubadiisii baa qabriga ku haysataa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waa go' yar oo daraahima macduuda xoogaa daraahima qiimihiisu uu yahay maca dalika saaxiibkii saxaabiga ahaa kama badbaadin cadaabkiisii qabriga kama una badbaadin maxaad u malaynaysaa qofka habeen iyo maalin cunahaya wax go' ka badan oo ka sii badan habeen iyo maalin raadinahaya oo cunahaya maxaad u malaynaysaa markaas saxaabadu markay maqleen intay naxeen waxay soo aruuriyeen oo soo qaadeen rag qaaday ilaashka kabaha iyo suumanka kabaha oo ay iska qaadeen oo iska fududaysteen ayay soo dhigeen oo soo tuureen markaas nabigu yiri shiraakun aw shiraakaan min naar waa suun naara ama laba suun oo naara weeyaan waxa aad keentay hadaad ku maqnaan lahayd cadaab ku gali lahayd ama uqubada aakhiro nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam inna rijalan yatakhawaduna fi mali llahi bighayri haqq falahum an-nar yawm al-qiyamah rag iska dhex dabaalanahaya maalka ilaahay xaq la'aan oo maal aysan xaq u lahayn qaadanayo oo dhex dabaalanahaya naar bay leeyihiin maalinta qiyaamaha ha ogaada wuxuu kale nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ya ka'ab innahu la yarbu lahmu nabata min suhtin illa kanat an-nar awla bihi qof ku barbaara ma jira xaraam illa naarta ilaahay ayu awla u yahay in la galiyo u galo oo ku gubto walaalayaal adduunyada waxaan joogaynaa maalmo kooban weey waxa aan haysanaa hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala qanaaca inoogu daro xaraam uma baahnin ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها وحي وحيودي ملك جبريل oo igu afuufay oo ii waxyooday naf dhimanaysa ma jirto ilaa ay dhamaystirato wixii ay cuni lahayd iyo wixii ajasheedii ilaa ay dhamaystirato iyo risqigi ay quudan lahayd qof dhimanaya ma jiro hadii xabad moosa ay noloshaada inaad quudati ay ku qornayd ma dhimanaysid ilaa xabada mooska aad cuntid oo ajashaada iyo risqigaaga labadaba aad dhamaystiratid markaas nabigu yiri fattaqullaha wa ajmilu fi talab ilaahay ka cabsada oo qaabka ah wax u raadinaysaan qurxiya oo dariiq xalaal ku raadiya wala yahmilanna ahadakum istibta'u ar-rizqi an yatlubahu bima'siyah rizqigi oo qofku uu daahsaday yeynan ku xambaarin inuu wada xaraama ku raadiyo yeynan ku xambaarin fa inna ma 'inda Allah la yunalu illa bi ta'atihi ilaahay agtiisa waxa yaala laguma gaari karo illa ilaahay taacadiisa iyo wadada xalaasha mooyaane si kale laguma gaari karo risqigi marka ay isleedahay uu ka soo daahay arinka ayuunan kugu xambaarin inaad xaraam cutiyo kugu xambaar ittaqullaha fi amwalikum ittaqullaha fi amwalikum ittaqullaha fi amwalikum ilaahay uga baqa maalkiina oo dariiqa aad ka soo shaqeynaysaan xalaal ha ahaato wadada aad ku bixinaysaan xalaal ha ahaato nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam adoonku ilaahay inuu hor taagan yahay ka zuuli mahayo ila su'aalo dhowr la weydiiyo waxa kamida su'aalahaas maalkiisa xagee ka soo shaqeeyay xageesa uu ku bixiyay ayaa la weydiinaya maanta chance baad haysataa aynan haysanin ragii hanti badan ka tagay oo markay dhinteen karfantooda loo iibshay oo hantidooda aan laga karfanin ragaasi waxay ka tageen hanti fara badan oo duruq xaraam oo kala duwan ay ku shaqeeyeen markay dhinteen ayaa la yiri karfan ha loo caariyeeyo ha loo gado karfan baa loo gaday ilmay ka tageen maalkii ku tumanahaya waxa laga soo maray aan ogeyn xalaal iyo xaraal wuxuu ka shaqeeyay aaba asaga u taala ayagu hawshooda qabsanahaya dan iyo heela aan ka lahayn oo ku tumanahaya ayaa la wareego dhaxlay
cadaabkiisii iyo cuquubadiisina asagay ku baaqita ragna waa ka dhaxlay lawaaqaati maantay kuugu dhowdahay inaad ka takhallustid hantida xaaraamta ah oo aad ka shaqaysay oo ilaahay og yahay adiguna aad ogtahay si kasta qofkaan uga qari saaxiibkaa ka qari kan ka qari ilaahay waxba kama qarin kartid shilinka jeebkaaga ku jira dib ugu laabo guryahaaga dib u fiiri baqaaradaada dib u fiiri camalka aad ka shaqaysay dib u fiiri hadday dawladii lahayd iyo haddii shakhsi uu lahaa maantay kuugu dhowdahay inaad ka dhex baxdid walow go'aagaba aad ka qaadatid adoo qaawanba aad ka baxdid ha isdhihin dadkaa kula yaabahaya cadaabka ilaahay baa kaaga daran halkaa marka lagu dhigo oo lagaa kala dareero oo xisaabtiisa lagugu soo dallaco ilmuhuna say rabaan ay ka yeelaan taasaa wallaahi kuu daran dantaaduna waxay ku jirtaa maanta inay ku ogaadaan muslimiintu inaad ka dhex baxday oo beri ah ka tahay ku bixi meelaha loogu talagalay in lagu bixiyo maalka xaaraamta ah oo waxa weeyaan duruqda iyo wadooyinka la samaynayo isbitaalada dadka masaakiinta oo baktinahaya iskaga bixi meelahaas iska takhallus inaad ilaahay u toobad keentay allaha kugu duwo waxa xaaraamtaan aad ka dhex baxday baryahan waxa magaalada aad u qabsaday waxa la yiraahdaa sarif liya forex ayaa aad u haysta asaguna qaybta xaaraamta uu ka mid yahay culimo badanna way cadeeyeen horena way uga hadleen dib dambana culimadu waa uga hadleen qaybta xaaraamta oo akli amwaali الناس بالباطل ayuu ka mid yahay mar waxa soo galaysa ribo mar waxa soo galaya jahaalo mar waxa soo galaya qarar waxaas oo dhan oo xoolaha maalka xaaraamta waxa weeyaan uu ku yimaado kulligoodba waa laga helayaa wax kala soo dheer oo dadku aysan ku baraarugsanay wax sarif la yiraahdaa meeshaan ma taalo dadka xoolaha laga qaadaa xoolahoodii baa loo celiyaa waxa yaala intaas weey xoolaha laga aruuriyaa oo laga qaadaa markaan u dirnay rag arintaas aad oo la socday oo yaqaanay oo daba galay waxay noo sheegeen waxa sarif la yiraahdaaba inuusan meeshaba oolin ama ribaba ha ahaado xaraan kasta ha ahaadee dariiqada hadda lagu macaamila aqlabkeedu inay tahay dadka xoolaha in laga qaado xoolihii laftigoodina loo celiyo kuwa cusub oo lacagtii la ordaya ay keenaan kuwii hore bishu markay u dhamaato la siiyo waliba bishu markay tahay 15 dambe meelahaas xisaabta qabashadeeda in la furo si xoolihii dadka looga kuwa cusub loo helo kuwii horena loogu bixiyo saa la iskaga daba wareejiyo marka dambana ay ku dhamaato telefoonada oo la dansado iyo hebel oo cararay iyo dadkii oo gacnaha taagahaya oo qof walba leeyahay lacag baa igu jirtay waa waray u leeyahay wayna u yimaadeen culumada dad intay dadkay lacagta u dhiibeen oo ka shaqeynayeen telefoonadii dansadeen carareen ilaa hadda aan la haynin culumadii u yimaadeen kuwa kale oo la jiidahaya culumada loo keenay oo intaas oo qof lacag ay ku leedahay oo ay leeyihiin aawa faa'iidada aan noo sheegteen oo oranahaya sarifkii aan sarifaynay waxa u jeedaan raqamkii aan ku sarifaynay iyo raqam sirrigii waana la ka xirtay istilaab baana la ka saaray meel u dhaqaajinana ma naqaano saas uu nooga xiran yahay wax lacag la yiraahdo meesha faa'iido ma taale waxaagi ayaa lagu sarifahayaa wixii dheeraad oo waxaagi ka dheeraad ah waa dad xoolahood oo lagu siinayo ka digtoono culimadu waxay ka hadleen qofkii qaatay oo qaatay ma doonan karaa lafihiisa maya waxa aad qaadatay iska xisaabi wixii dheeraad kugu oo lafahaadi ka dheeraad ah ha dhowto markii waxaas ay fashilmaan miskiin la dhacay u soo qaad oo ku wareeji oo si ayaga ha u deyn ayaga waxba xalaal iyo xaraam kala yaqaanaan isii dhalafahaygi ka soo qaad hay hadii 2,000 aad u dhiibatay oo 2,000 ay ku siiyeen bilna 500 ay ku siiyeen aad cuntay oo kun uu kuugu dhiman yahay ayaguna 2,000 baan ku haynaa ay ku leeyihiin 2,000 lafaha isiiyade ka soo qaad 1,000 baad ka isticmaalaysaa kunka kale adigu ma liid waxaana waa dad lacagtooda la wareejinayo wayna dhacdaa tuugada noocaas aad u fara badan tahay waxa cajiib ah haddaan ba sharci ilaahay la aadin dadku ma waxay fahmi waayeen wadanka kambaniyaal waaweyn oo milyaneeraa jooga khasnadahoodana ay ka buuxda kaash fara badan faa'iidada ay sanadkii keenaana wax yar ay tahay 30% 20% iyo wax la mid ay tahay ma waxay dadku fahmi waayeen faa'iido la leeyahay waa bil kaste kun baa dhiibaysaa 400 baad qaadanaysaa bishii kun baa dhiibaysaa 400 baa qaadanaysaa qaar baa 500 la soo siiyo leey faa'iidada bisha waxa faa'iido 500 kun baana dhiibtay
محاكم بنيال كان واوين أو مليونير رضع أو كاش كهيستا فائدة أن دور كأ أو إسكاس عطاء بالول بالفائدة هي محاكم عند صابي خبراء بدقالي ليهين صرف بيقانان نوع كستول العقل والرياضية يقانان دت كاس كان بنيال كان مصيري كران دت كان وحيصير كران وهويدا yaanyada gadaysa iyo midda dahabkeeda soo furaysa iyo midka bakhaarka yarka jooga iyo midda ilmaha biilkooda ka soo jafaalinaysa kuwa la dhacahayo oo la sirahaya kuwaas weey xoolahooda la cunahayo إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إمي سأغون يروح له هي لو ديبي كن دولار يلا بكون أغون أي لهاي إمي سافرق الله وشو إمسا وحوي هوية يجدي سحوجا جدي ساقط يا شقيسان لها هدي كون دولار انتهى بتبيله بأفر بقول أقادنا يصير يا بشقين لها ودليري لها قفل بحولي زين توس كسي حدود ضدلان لها هي عقل تاسك فهم سينها هي أنت اللي جارين محلال بامس وحرام قف كي قلي إلهي هأوقات طابت كان سيد دق وحقوا كل يا الرأس مال كيسي أهنا هكقاضو مركو كقاضو أنت وكعنا والرأس مال كيس وحنا فشل كودو ودويين هذا نواب باللودين فشل كودو ودويين آدي أدبن وقدقينا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين